gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada dheer ee isku xirta argada degmada Daynile ama wadada kuliyada Jaalisiyaad ilaa gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. wadadaasi oo hormarta xarunta degmada Daynile. wadadani uu duqa magaalada Muqdisho dhagax dhigay ayaa ah mid aad u burbursaneed oo dhismaheeda ay baahi weyn u qabeen bulshada reer Daynile isla markaana isticmaalkeeda dhibaatooyin kala duwan lagala kulmi jiray. gudoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir Maxamed Abuukar Cali Jacfar ayaa ka hadlay muhiimadda wadadani. maanta waa maalin weyn, waa maalin aad u farxad badan, waa maalin jidkan dhismihiisi la dhagax dhigay. insha Allah aan rajeynayno inuu socod doono. war badan waxba gelmayno dhammaan dadka deegaanka waxaan u maranayaa iyo ummadda muslimka ahba in jidkan jid wax tari doono oo noqon doono. gudoomiyaha maanta noo dhagax dhigana waa ku mahadsan yahay. inta ka qayb qaadatay iyo inta hadda u taagan iyo inta ka qayb qaadan doonto ayagana waa u mahad celinaynaa. dad waxaa jira muddo badan ka soo shaqeeyay oo dhalinyaro iyo haween iyo odayaal intaba la iyo xildhibaano waa ku mahadsan ayaguna shaqada ay ka soo qaateen jidkan in uu furmo oo dhismo. insha Allah inta kalena waxaan rajeynaynaa inay hadda ka qayb qaadan doonaan. waana mahadsantihiin dhammaan farxadan aan soo dhimaanto ku mahadsantihiin. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ibrahim Cumar Mahadal Ibrahim Dheere ayaa u mahad celiyay cid kasta oo kaalin ka qaadatay hirgelinta mashruucani. intii qayb ka qaadatay oo kamid yahay gudoomiyaha degmada Daynile, gudoomiyaha xaad oo guddiga qabanqaabada uu yahay gudoomiye Xaaji Mire Indhayare, Caasi Saacuur, Xaaji Cali Siino, inta aan ka tagnay xaalli ahada kulligina waa mudantihiin. insha Allah dadaalkana maanta aad gaseen oo waqtiga badan aad geliseen suurtagalnimadeeda iyo mirihii ka soo baxay waad arkaysaan. xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliyeed waxa uu bogaadiyay mashruuca lagu dhisayo wadada dheer ee degmada Daynile. maanta waxay noo tahay guul, waxay guul u tahay gobolka Banaadir, waxay guul u tahay shacabka ku nool degmada Daynile oo iyaga gobolka Banaadir ay ka kaashanayaan inay wadadan maanta ay dhagax dhigaan. insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa inay guul noogu dhamaato. gobolka Banaadir dadaalka ay u muujiyeen shacabka degmada Daynile taariikhda qori doonta, annaguna abaal gaar ah u hay doonaa insha Allah tacaala. Mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish waxa uu ka hadlay ahamiyadda mashruucan iyo kaalinta maamulka gobolka Banaadir. wadada Daynile waa wado muhiimad gaar ah u leh maamulka gobolka Banaadir, muhiimad gaar ah u leh guud ahaan bulshada ku nool gobolka Banaadir, muhiimad gaar ah u leh bulshada ku nool labada shabeelle ee Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. wadadan waa wadada loogu talagalay inay highway noqoto haddii aan la idmo. waa wado dhinaceeda midigta marka xamar laga baxayan uu noqon doono Shabeellada Dhexe, dhinaca kalena uu noqon doono Shabeellada Hoose haddii aan khaldanayn. sidaas darteed waxay fursad u tahay zaxmad kasta oo ku timaada wadooyinka magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka Balcad iyo Xamar iyo Afgooy. wadadan waa wado xambaarsan muhiimad badan haddii aan la idmo. dhismaha wadadan waxaa iska kaashanaya sida boorka gadaasheeda ah ku qoran maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada reer Daynile. bulshooyinka kale ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir waxaa looga fadhiyaa inay ku dhiirigeliyaan maamulkooda dhismaha wadooyinka degmooyinkooda mara ama hortooda sida reer Daynile oo kale. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.